afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Ciga Deyr oo maanta jihaad ku qabtay magaalada Gabiley xarunta gobolka Gabiley ayaa ka warbixiyay safarka madaxweynaha qaranka Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanye ku joogo dalka Imaaraadka Carabta sidoo kalena wuxuu afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Ciga Deyr waxba kama jira ku tilmaamay hadaladii mudooyinkii ugu dambeeyay baraha bulshada lagu faafinayay ee sheegayeen xaaladda caafimaadka madaxweynaha qaranka Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanye halis ku jirto isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladiisi xaafadda jecel maanta inaan warbixin yar oo kooban ka siiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanye muddo 2 toddobaad ku dhow ayuu booqasho ku joogaa dalka Imaaraadka Carabta san hore u sheegay booqashadaas waa booqasho shakhsi ah oo gaar ah sida madaxweynayaasha kale adduunka ay fasax ugu baxaan ayuu madaxweynuhu fasax u baxay haddana howlaha iyo maslaxadaha qarankeenu leeyahay meel kasta iyo goob kasta madaxweynuhu ku sugan yahay mas'uuliyadda historia ayaa waxay faraysaa inuu ka howlgalo wasiiro dhowra oo qaarna cimrada ka yimaadeen qaarna madaxweynaha la socdeen ayuu madaxweynuhu kulana la yeeshay dacaayadaha raqiiska ah iyo propagandada ah in shirki golaha wasiirada loo bedelay Imaaraadka waxaan leeyahay waa waxba kama jiraan sidoo kale waxa jirta warar badan oo aad moodo dadka qaarkood inay habaarba uga jeedaan oo ay leeyihiin madaxweynaha xaaladiisu waa halis dhakhtar buu ku jiraa qalliin baa lagu sameeyay alloo soo duceeyo waxa waxaan leeyahay madaxweynuhu caafimaad qaba alxamdulillah buu taagan yahay waa madaxweynaheennii waynu u ducaynaynaa habaarna inagama mudma dadka mucaaridka ah ee doonaya inay caafimaadka madaxweynaha campaign ka dhigtaan caafimaadka madaxweynuhu campaign ma noqon karo madaxweynuhu waa madaxweyne wuxuu yahay muxaafid iyo mucaaridba waa madaxweynihii qaranka waa hogaamiyihii qaranka cudurkii caafimaadkana ilaahay baa habeeya laakiinse halkan waxaan ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland gudaha iyo dibaddaba uga sheegayaa anoo afkii madaxweynaha iyo madaxtooyadaba ku hadlaya madaxweynuhu caafimaad qabo wax qalliina aanu gelin xaalad caafimaad oo magaranaysa uu ku sugan yahay oo xunna aanay jirin waxaasina waa warar propaganda iyo warar dhiila oo ummadda la doonayo in lagu khalkhal geliyo in ummadda Soomaaliland lagu kala qaybiyo waxa muhiim ah in xisbiyada tartanka ka dhaxeeya xisbigii tartanka ka doonaya inuu galo inuu caafimaadka madaxweynaha ka dhiganin ajendaha koowaad laakiinse uu soo bandhigo manifesto iyo waxqabad uu ku bedeli karo xisbiga hadda talada haya laakiinse caafimaadka madaxweynuhu maaha ajenda ummadda ku soo jeedi kara mar labaad waxaan ku celinayaa oo warbaahinta u marinayaa dadka warxumada shiilka dadka dhiilada ka shaqeeya dadka dhaliila had iyo jeer wax kasta oo wanaagsan ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland u qabsoma madaxweynuhu caafimaad qaba dhawaana dalku uu ku soo laaban doona warkaasina waa war madaxweynuhu wuxuu leeyahay dad u gaara oo xaaladiisa ka warhaya marwada koowaad xaaskiisa ka mid ah caruurtiisa ka mid ah wasiirka madaxtooyada ka mid ah wasiirka waxa ka mid ah maaliyadda ka mid ah ambassadorka inoo fadhiyay Imaaraadka ka mid ah madaxweynuhu diyaaradda Hargeysa markuu ka raacay Faadumo Saciid waxay sii fadhiday diyaaradda oo iyadna socdaal gaar ay ku socotay halka way kula kulantay laakiinse waxaan beeninayaa in Faadumo Saciid ay madaxweynaha aragtay oo ay u tagtay oo sariirta isbitaalka ay sheegaysaa ay kula kulantay warkaasi waxba kama jiraan oo propaganda ducada madaxweynuhu way furatay in loo duceeyo inuu xilkiisa ku asturo inuu ilaahay ummadda xilka iyo waajibaadka uu hayo inuu ilaahay ku asturo haddii uu xanuun ku dhaco oo waa inagu inala sameeyana in loo duceeyo laakiinse waxay Faadumo madaxweynaha ay uga ducaynayso maan garan madaxweynuhu muddo dhow haddii ilaahay yiraahdo muddo dhowr cisho gudahood dalka uu ku soo laaban doonaa waxaan toddobaadka badnayn haddii ilaahay yiraahdo taasi ayaan ku xaqiijinaya fasaxiisuna waxa weeyaan markii hore de fasax muddo mu ahayn laakiinse waxa weeyay fasax gaaban oo madaxweynuhu u gaara ayuu dalka Imaaraadka ku tagay magaalada Abu Dhabi imikana hadii la dhawaan wadanku ku soo gudo noqon doona madaxweynuhu markuu booqasho gaara ku tago ama mid la xasuumaha noqdo ama mid fasax ha noqdo ama safar u gaara noqdo uu dal ku tago wixii danaha qarankiisa u adeegaya oo la kulmo mar walba uu ka howlgala ha noqoto dalka Imaaraadka Carabta wadana badan inaga dhaxeeyaan ummado kale oo dalka Imaaraadka uu la kulmo dad kale oo maalqabeena oo dalka Imaaraadka jooga madaxweynuhu waxa weey hadii jeer wuxuu u darbeeyahay oo diyaarna u yahay in danta iyo maslaxadda qaranka wax kasta uu ku aslaxayso uu ka howlgalo guuleed cali ibraahim ilka case warbaahinta caalamiga SBC magaalada Gabiley xarunta gobolka Gabiley